bahda kala duwan ee madax dhaqameedka ee gobolka Awdal ayaa iyagu soo dhaweeyay taageerayna go'aankii ay soo saareen gudidii dhexdhexaadinta ee ka soo jeeday deegaanada gobolka Togdheer waxaana ay sheegeen in dhinacyada siyaasadda Soomaaliland isku haya ay si mug iyo miisaan leh ay u qaataan waxaana saraalintan sidoo kale ay taasi u direen qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen ciidamadii ka dagaalamayay magaalada Laascaanood halkan hambalyo uga direynaa go'aanka ay soo saareen dhaqanka beelaha habar jeclo annagoo Awdal iyo Salal haddii la sii taariifiyo ciise iyo gadabuursi halka wada joogna waxaan taageeraynaa qodobada ay ka soo saareen xalkii nabadeed ee gacanta ku hayeen dhammaantood sida u qoreen baan u taageeraynaa waxaan codsanaynaa kolkaan qiimaynay dalku xaaladda maanta uu marayo si uu nabarrada loo wada dhayo kale in la qaato xukunka ay soo jeediyeen cid waliba ay qaadato waxaan si gaara uga codsanaynaa madaxweynuhu arrintaa inuu dhaqan geliyo qaato hay-adaha sharciga waxaan ka codsanaynaa inay fuliyaan si degdega wixii kaabidee lagu samaynayo inay xukunka ay soo saareen beerahaas een annaguna taageernay dhammaan ninka diidee ereyada ka mida ka diida ee amarkaa qaadan waa madaxweynaha ahaatee haddii la diido ninka diida ilaahiya Soomaalilandba waa ka dhan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أو شيء عقل كي يجوه الرئي هالك كهذلي هذا الكيجو ما أنت ما بدنا كليه وحكوك هو بيه تغيرد قوان كبيش هبر تشالو وهالكي أنا دافين وسيدا كليه وحلقو لقو قاري كرن بتقليو بوحدة waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay go'aanka la soo saaray sideedu dhaqan geliso haddaanu gobolkii Awdal iyo Salal nahay waan ka midaysanahay arrinta aan ku taageerayno gudidii habar jeclo ballantii aan lahayn waxay ahayd inaan ku taageero wixii ka soo bixiyay wanaaga wixii ka qaldamana inaan u wada joogno mustaqbalad u ahaano way soo saareen go'aankii وانا كنت تاجرسناهي هذا نهاي أودل يسلل وحا أي صوص أريم ما كنت تاجرسناهي عد كسو أي قصيصانا إن أي قادته أو كنت تاجرته أي اللوبة هي سيدا سان قاعد هذه نهاي قبل كأودل يسلل وانا السلام يا السلام عليكم أنا روان كنت تاجرسناهي هذا نهاي بلا أودل يسلل دقن كوجي يو حجرت كوجي سيبقلي ميزان كنت تاجرسناهي أنا قاطان حكومة سلح بي كجرين سلح خير بي حيب سلح نوا شرعي إلا قاتل وان سو جيدينينا دبتك سو قادي عيدا مضى إمشادا كوا قعانت اللغو هايو كوا داوعا عيدا وينيه سكالي إفيو إيا حكومة بتعصبان وقدر إياه دباتنا قادي waxaan ku talinaynaa in ciidanka la habeeyo oo aan la dedejin moralkiisa iyo nidaamkiisa la habeeyo la dhiso oo aad looga fiirsado waxa kaloon halkan taageero mug iyo miisaan la ku siinaynaa arrintii khilaafka siyaasadeed ee beelaha bariga burco mar lagu sheego marna beelaha habar jeclo lagu sheego ayaa si mug iyo miisaan la u taageersanahay annagoo ahayn ergooyinkii yimidda Hargeysa ee la kulmay ergooyinka dhammaanba Hargeysa jooga ee u taagnaa arrintaas ayadoo beelaha habar jeclo ay dadka hortii ay ku horeeyeen xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo أحسابته معارض كأ إيوه دقة كلاجر حجزبة أي كلسوني أرتيا كقادين أرتيا كقادين أنا كلناي أنا يلادين كلسوني بان هينا أنا جاي سكودينا يلا نقول دعينا أنا نقول دعيني ما أنت لو حيصو صارين
aad baan ugu bogaadinaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الثناء لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي odayaasha horeba sheegeen waxaan maaragtay aad iyo aad ugu taageersanahay suluxa ay beeshu soo saartay habar jecle way horeba u sheegeen inay iyagu galeen anaguna aanu ku nidhi waan ugu daba joogsanaynaa insha Allah biidna karim waxaan leenahay horta ninka maanta Soomaaliland ee taa diida waan in isagu dan gaar ah leh handa Soomaaliland wadin ninka maanta taa diida dan gaaru isagu leeyahay ama ururahaado ama xisbihaado ama madaxweynaha haado ninka maanta taa diida Soomaaliland uma danaynayo iyadoo nafro kale jiraan waxaan leenahay arinta hal isku wada raaco halkeegan hal dhigo waxaan kale ku daranaa dadkii dhintay ee ciidamadii Soomaaliland iyo cidii kale ee halka ku dhimatayba ilaahay ha u naxariisto ehelkoodina sameeyay baana ka siiyo sidii odayaashii horeba sheegayna waxaan leenahay dagaaluna xal noqon maayee wabal cidda midida daabkeega haysta xal kale ha galaan oo wadankan dagaal hadduu dagaaluna soo socdo adeed wadanku kala furfurandee waxaanu ka tacseenaynaa dadkii halkaa nagaga dhintay ee Soomaaliland kaga dhintay ee Soomaaliya kaga dhintay naxariis janna Allah ka waraabiyo intii dhibaatadii dhaawac ka soo gaadheen Allah u boogadhayo taasi waa qodob tacsiya ah qodobka labaad waa talo waxaan odhan lahaa nin baa wuxuu yidhi inama badan lahaayo reerkii looga itaar roonaaday ayaa galin buu yidhi wareerka sidaa ka daaya haddii laga dayn waayo anigu intaad reebtiin baan rari buu yidhi intaad reebtaan baan rari waxaan leeyahay waxaan maqlaynaa hadallo in tallaabooyin la qaadayo lagaga jawaabayo tii dhacday waxaan ku talinaynaa balaayada halkaa maanta ay ku joogtaa ku joogteen hal laga fiirsado ficilada dambe iyo tallaabada dambe ee la qaadayo taasi waa iga talada ay keeneen Allah ka aqbalun baan odhanayaa ta kale waxay odayaashu yiraahdeen baan ku raacsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin salaadiinta iyo ogaasha hadashay waxay yiraahdeen baan ku raacsanahay oo aad iyo aad baan ugu raacsanahay waxaase weeyi waxa waddanka ka jira waa in dib loogu noqdaa laga fiirsadaa laga baaraan dagaa tala midaysan waa in lagu dhaqaaqaa waxaan meel walba ka hadlayaa ma soconaysa warbaahinta wax la dhigayaa intaasaan taana ku darayaa ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay Soomaaliba Allah wada naxariisto intii ciidan ka dhimatay intii cid kale dhanba Allah wada naxariisto ilaahay qabriga ummadda ha u nuuro ilaahay ha u naxariisto waxaan halkan tacsiib uga dirayaa dadkeennii weegagani dhibaatada badan iyo geerida badan ee ay ku dhacday oo maaragtaa dadka Soomaaliyeed oo dhana iyo tii cuslayda innaga inoo gaarka ahayd nabad baan ahayn intaasaan Soomaali kaga horeynay maanta waxa weeyaan dhibaatada ku dhacaysa inagu wada dhacday ilaahay ha u naxariisto samiriye iimaan ilaahay ha inaga siiyo ilaahay iyagana ha u naxariisto waxaan leenahay waa dhibaateynta lagu daayo dhinac kasto jirtaba waxa weeyaan waxa kaloon halkan maaragtaa aan ka xoojinayaa taageeradii odayadu ay ka hadlayeen go'aankii ay soo saareen beesha habar jeclo go'aan la sugayey buu ahaa go'aan wuxuu ahaa waarbaliikaadii anaa xogogaalehay niiga yar horreynne la isku ogaa buu ahaa wax khayr qabo oo loo bogay ayaa ka soo baxay waxaan leenahay cid kastoy khusayso kuwa maaragtaa aqbalay qaybaha aqbalay waan u mahadnaqanaa waan u ducaynaynaa ciddaan weli hadal laga maqaleen aqbalinay arrinkaa aqbal waxaan leeyahay walaalaha yaga harti ee maaragtaa dhibaatadu ay maaragtaa waayadan ay ka dhacday Soomaaliland dhexdeeda waxaan leenahay walaalayaal dee wixii dhacay ilaahay baa qadaray waxa weeyaan hadalkiinu wuu fiicnaa maxaabiistaad qabateen sidaad ula dhaqmasaan waad sheegteen wuu fiicnaa hadalkiinu haddii qaar hadal turxaan leyni yidhaaheen waa niga raalli gelinanaa in yaroo kaftanaan nidhaahe waynagii USB isku ahayne maanta saddeydii ku xoog baad yeelateen oo idinkaaye annaga waxaana helay
dhaqaalihii raguuni iska cunayey yaa maaragtaa neela abaar baana heshay waar hadday inamadayadu axmed diryac yiltire wararka warbaahinta SBC boorama